بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا وزيرك فيلمس مقعيق وزيرك waxaan rabaa inaan bilaabo casharo oo lagu baranayo luqadda Jarmalka iyadoo af Soomaali lagu turjumayo bilaawan ka bilaabi doona hadii aad u aragto casharkan inuu bilaaw yahay oo yaani aad taqaanid waxaan fadlan dhibaato male casharo qayb yaro qaybaha dambe ee gadaalka imaan doona ee adag asleed waxba ka faa'iideysan doonta markaas ay waqtigaaga noqon doona hadii had videoga aad daawanaysid oo u aragto casharkan oo cashar bilaaw yahay isku day fadlan hadii aad taqaanid qof kale oo u baahan u shargalay ha ka faa'iideysto hadii aad cusub tahay ka faa'iideysanaysidna ahlan wa sahlan soo dhawow insha Allah kulay waa casharkii ugu horeeyay aan rabo dadkina ugu faa'iideeyo cashar waa jira waxyaalo kale aan sameeyay mar TikTok aan galiyay laakiin hadda waa video ugu horeeyay aan sameeyay YouTube-kayga okay marka dhowr kalimo aan rabaa inaan maanta barano okay marka kalimada ugu horeysa Jarmalka oo qof kasta yaqaan ama dadka inta badan maskaxdooda ku soo dhacayso waxa waaye ya oo macnaheedu yahay ha tusaalahan mehebel baa tahay ya marka halka Ingiriiska y ay ka tahay inta ya loogu dhawaaqa ma fahanteen meeshii yes take marka ya marka qaar waxa dhacday xitaa luqadda yaqaan xitaa in wax lagu weydiiyo aad tiraahdo yes waa laga fiican because luqadooda yes ma kamid aha marka isku day mar walba inaad tiraahdo oo afkaaga u barto ya okay kalimada xigto waxa waaye nine maya waaye waxa ka dareemaysaa nine-tan waa n ana Ingiriis ahaan ku sheegaa moogtahay n e i n y marka Jarmalka markay israacaan e iyo i ama Ingiriis ahaan hadda ku sheego waxa la dhahaayay e iyo i markay israacaan inta badan i loogu dhawaaqaa hadii i-da soo hormarto oo e ku xigto badana e ee noqota saas dadka markaad meeshaan ento waxa waa 9 waxay ka kooban tahay n iyo e iyo i ka kooban tahay i ee noqonaysa i 9 kulli meesha wada ku soo qora kalimada saddexaad ee xigto waxa waaye vielleicht laga yaabe maybe ma fahanti laga yaabe tusaale ahaan marka meeshan waxa ka bilaabay ereyga wuxuu ka bilowdaa ereyga Ingiriis ahaan v laakiin laguma dhawaaqay v ahaan because waa idin sheegi doona kulli gadaal ka ogaad doontaan w da waxa lagu dhawaaqa fa marka v maadaama ay haystaan fa ahaan ay u dhawaaqaan v ma ugu dhawaaqaan marka va ay qoranta waxa u akhrinaysaa vielleicht ma aan village tamaan vielleicht maybe ama laga yaabe waxa keenayso wax waaye waxba lagu weydiiyay waa hubta ya sheegan mayna leedahay 9 alada marka waxba lagu weydiiyay martid inaad tirahdid ha ama maya laga yaabay inaad tirahdid vielleicht maybe xasaas oo kale oo maleena amal xasaas oo kale markaas si qosaysa macnaha wixii markaas aan ka hadlayna macnaheedu noqonaysa okay waxa kale oo Jarmalka leeyahay wax la dhaho article dadka inta badan ay ka qayliyeen saddexda article ee Jarmalka isticmaalayaan waxa kamid ah der ana raad ma ku dhawaaqayaan kulay lahajada dalka dadka ninba si uu ku dhawaaqa Jarmalka markaad Soomaali ahaan u akhrinayaan waxay u qoran tahay der waa iyo ira der laakiin mararka qaar ma muujinayaan der ay leeyihiin waa kulay nimanka loo isticmaalaa ama maxaa la dhahaa lab iyo dadig Soomaaliya lab iyo dadiga qabnaa marka lab dadiga ninka amuu yahay lab ama naagta ma aqaan kaas la iga sax fadlan comment la ku soo qoro haduu dadiga nin yahay marka dadiga iskale ninka iskale marka lab iyo dadiga kala garan la way ka maqan tahay d waa da iyo i iyo e y d aydan waxa iskale waxyaalaha midalan ku salaysan dumarka ama lab ma aqaan lab iyo dadiga aan ku wareersan kala garan la ahay marka hadii lab uu yahay waxyaalaha tusaale ahaan marka ninka naagta wax kasto ka ayna marka iskale ma fahanteen wiilka ninka gaariga albaabka waxaan wax waa article oo nin waay
taana wixii ku dhamaad badanaa wax naaga iskale ma fahanti wax kale u dhaxeeyna waa jira oo u dhaxeeyo oo daa wax isku dhamaanay daaqada wax saas oo kale ama dariishada daartid marka saddexdaas article waxa waa marka waa there iyo die iyo das tusaale ahaan marka ninka oo kale man way der man ma dhehaysid der man raado wala qarina kadib naagta ku soo xigto die Frau das waxa qaadanaya midna gaariga oo kale waxa u fahantaa das inta badan marka waxan aqal lahayn ama wax saas oo kale tusaale ahaan ilma oo kale waxa leeyahay das Kind marka kulay article aad loogu wareera dhibka jir wax waa Ingiriiska hal article oo leeyahay waa the man the woman the auto wax kasta da'wa ma fahanteen laakiin dadkan waxay isticmaalayaan der die iyo das wax kale soo xigo waxa kamid ah mesela kalimad wo hada fiiri fa ma dhehno w ka bilawata v alo akhrina wo macna waa halkee intee xagee waay ma fahanteen marka tusaale ahaan su'aala sameeynaa marka tusaale ahaan su'aala sameeynaa waxaan dhahaynaa wo ist das Auto kadibna aan su'aala qoraysa wo ist das Auto jaa su'aala sameeynaa macnaha halkeen waa haysanaa istana macnaha jumladda saxaysaa oo kulay jumladda kamid tahay oo sida Ingiriiska oo kale is waay ma fahanteen my name is ma fahanteen marka das Auto gaari waay marka auto waxa aragtiin xarafka ee aada inuu capital yahay waayo waa magac markasto magaca aragto waa inaa capital siisaa sadar walba oo qoraal ka bilaawdana magaca ahaado wuxuu doon ha ahaado waa inuu capital noqdo because wax kasto meel ka bilaawdo waa capital gudaha markii la soo gaarna wax kasto magaca waa capital saas darteed marka waa weyn xaraf weyn laga dhigaa waxa la leeyahay marka meeshan verb waa weynina because way ka bilaabanaysaa Autona aada la weynina because waa magac ma fahanteen wo ist das Auto halkoo yani Soomaaliya halkoo yeela gaarigan ama gaariga intuu yaala ama wax saas oo kale waa gaariga intuu yaala gaariga aaway marka anaga Soomaaliya la silo fiir waa Soomaaligan aad u macna badan yahay qabda si uu u fahmaa ma fahanteen marka aaway gaariga intuu yaala wax saas oo kale ma fahanteen qof ugu gaariga yimid wo ist das Auto aw gaariga wax saas ku dhaca marka ma fahanteen su'aashaas ku imaanaysa kale waxa jiro marka su'aal ahaan inta badan waa maqasheen laakiin dadka inta badan maxay dhahaan ma fahanteen bin Mustafa bin wasiirka dad qaan waxay dhahaan marka haddana lahajada qof kasta meesha uu joogo si uu dadka isku dhawaaqid ma aha dadaa ku dhahay Mustafa hadhihin waa inaad tiraahdaa dad aan ka wada dad waxay ku leeyahay khalad waa Mustafa hadhihin waxay tiraahdaa ma qaan maqlaysan meel xun ay ka soo saaray ma fahanteen laakiin muddo waxa way uu fahmaa mar walba taas dhawaaqa adag keenin xataa uu ku fahmaa ayaga ma fahanteen waa aniga waa aniga marka tusaale ahaan gaariga dhexdiisa inaan dhaharaba gaariga dhexdiisa maxaa leedahay im auto intaan arkaysiin oo I iyo M biska kooban English ahaan waxay noqonaysaa im auto had tusaale ahaan in the auto okay marka intana arkaysiin ayada waxa laga keenay intana arkaysiin waxa laga keenay them marka waxay noqonaysaa in them auto waxaan waxa la wax datif la dhaawo kule waa ogaad doontiin aada lagu wareera aslan das auto ayadoo aheyd adasti markii loo bedelo datif waxay noqotaa them maadaama gaariga aan tilmaamayno in uu yahay aan haysano in them auto wala soo gaabina demti m laga soo qaadana nuunka wala tuura naada kadib im auto alla marka si dheer kuma marka hada isku wareerin qof cusub tahay marka tilmaama gaariga dhexdiisa maxaa leeyahay im auto marka waxaan rabaa inaad dhaho aniga waxaan ku dhex jiraa gaariga dhexdiisa ama gaariga yani ku dhex jira ich bin im auto
waxaana dhahno ninka gaariga dhexdiisa ku jira hore u soo qaadani nin hadda sheegeen man waa ina article ka sheegnaa because magacii article ma kala haraan there man ist im auto fahmaysan okay naagta soo qaadanayna die Frau dada dhahan Frau way fahmayaan waa iska caadi dadna waxay ku dhahaan Frau hadhiine Frau de Frau Francis oo kala koregelinayaan marka waa isku wada mid marka wax ma aha luqadda uma dhalan laakiin muhiimadu waxa inay ku hadli karto ugu fahmayaan muhiim ma fahanteen ilmaha ku dhashay dalkan oo kala kindergartenka school markay tagaan iyo dadka dalka ku koraan way la qabsanaa laakiin dadka anagu dad waaweyn iimaanay waan u adagtaa inaan kala marka qaar barnaamijyada si sax ah u keeno marka waxa la marka die Frau ist im Auto naagtu waxay ku dhex jirtaa gaariga der Mann ist im Auto ninku wuxuu ku dhex jiraa gaariga ich bin im Auto aniga waxaan ku dhex jiraa gaariga ma fahanteen sidoo kale tusaale waxaan keenaynaa مثلا أنا لو قد جرمك عبرته ich lerne Deutsch marka dadna way ku dhawaaqayaan raada dadna ma ku dhawaaqayaan ma fahanteen ich lerne Deutsch raada maqlays marna waxay ku dhahayaan ich lerne Deutsch laakiin marba qofku waa fahmaa hada meeshan Deutsch da'da way weyn because waa magac ma fahanteen ich marka dhahay ayno weynina because bilaaway ka bilaawata marka mar walba wax ka bilaawdo iyo wixii magaca gudaha ku jiro fadlan capitalka kiilowina muhiim waa ereygan lernen ich lerne ana kasi dhiman ereygan asalkiisa verbka asalkiisa ficilka waa lernen ama lernen raado ku dhawaaqay daarta ma ku dhawaaqaysid ma fahanteen marka badana jamalka waxay sameeyaan ereyga ficilka hadda ereyga tusaale ahaan sameynta oo kale waa machen aniga markaa iska hadlay waxaan sameynaa dhaha waxaan leeyahay ich mache aniga waxaan sameynaa naad waan ka reebaa xarafkaas laga reebaa ma fahanteen kulay casharo soo socdana waa ku tusi doonaa Ilaahay yiraahdo marka ina idinku baday maraw daqiiqadana inay bateena u maleena 10 ka badatay mar laakiin way ka sii badatayba insha Allah casharkiisa xiga oo wasiirku idinkaga tagay intaas nabad geli fadlan video like ha ka iloobina subscribe ha ka iloobina hadii aad leedahay cida u baahan videogan u share garay oo dadka kale sii gaarsi walaalaha nabad geliyo mac salaama bye bye